السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontid videogan haddii aan leedmo. Waa walaalkiin Ibrahim oo aad uga barateen markasta inuu idin soo gudbiyo wixii idin anfacaya aakhira iyo adduunba. Insha Allahu tacaala daqiiqado kooban ayaan kula wadaagayaa waalidka qaabka ugu fiican ee ilmaha ay ugu xirxiri karaan oo ruqyada carruurta ah, qaabka loogu akhriyo carruurta qur-aanka. Nabigu sallallahu alayhi wasallam xasan iyo xuseen wuu xirxiri jiray oo wuxuu oran jiray uciidukumaa bikalimaatillahi taama wa min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli caynin laama. Marka waxaan ka rabaa insha Allahu tacaala qaababkan inaynu raacno si aynu carruurteena insha Allahu tacaala aynu ugu akhrino ruqyada sharciga ah, isha iyo maaragtay waxyaalaha dhibayana ilaahay uga duwo. Marka koobaad waxaad samaynaysaa gacantaada ayaad dhigaysaa madaxiisa saaraysaa, kadibna waxaad akhrinaysaa suuratul faatixa. Yani gacantaada waxay saaran tahay madaxiisa, waxaad akhrinaysaa suuratul faatixa, aayatul kursi, labada aayad u dambeeya suuratul baqara. Kadibna 3 jeer baad oranaysaa bismillaah uciiduka bicizati illaahi wa qudratihi min sharri maa tajidu wa tuxaadir. 7 jeer iyo 3 jeer inta waad oran kartaa. waxaad oranaysaa sidoo kale bismillahi alladii laa yadurru maca ismihi shay'un fi lardi walaa fi samaa wa huwa samiicun caliim. ducadaasaad akhrinaysaa. waxaad kaloo akhrinaysaa suuratul falaq, kadibna suuratu qul huwalle, qul acuudu birabbil falaq, qul acuudu birabbin naas. midka 3 jeer baad akhrinaysaa adoo ku tufaya gacantaada. markastoo aad gacantaada ku tuftana jidhkiisoo dhan baad marmarinaysaa. waxaad samaynaysaa uciiduka bikalimaatillahi taama wa min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli caynin laama baad akhrinaysaa. intaasoo ducooyin intaasoo aayadaad akhrinaysaa. markastana aad akhrinayso gacantaadu madaxiisa ha saarnaato insha Allahu tacaala. isbuucii 1 mar 2 jeer haddaad maalin walba awoodana waad samayn kartaa. insha Allahu tacaala waxay u noqon doontaa wuxuu ilaahay kaga ilaaliyo shayaadiinta sixirka iyo isha iyo maaragtay waxaan rajeynayaa haddaad ka faa'iiday inaad sii faafiso haddii alla idmo. markastana halkan waxaad kusoo gudbin doonaa insha Allahu tacaala fiidiyoyada anfaca dadkana anfaca. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.